saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan janaalkayga. fadlan subscribe ii saar. aad baa mahadsantihiin. daafac kasta oo markaas ka hor imaada dalbiyeer ma uusan jeclaysan jirin mar labaad inuu ka hor imaado. taas waxay sababteedu ahayd awoodiisii jireed iyo farsamadii ilaahay ku manaystay cunugii kasoo ifbaxay akademiyadii inji magacana ku samaystay gobolka mudug iyo kooxda homboboro. mid ka mid a xidigii ugu macquulsanaa ee soo maray kooxda homboboro iyo gobolka mudug. sirta ka dambeysay inuu lascano wadnaha jaro 2 goolna ugu shubo asagoo markaas keyd ka soo kacay. cabdixakiin tarabi cawke oo ku nool dalka Australia ayaan qadka taleefanka ku wareystay anoo ka wareystay taariikh nololeedkiisii kubadda cagta min ilaa heer gobol iyo heer degmo. dhammaan reemiduga xasuus ku leh aniga runtii si qaas ay ii taabatay ahayd qof walbo haddaan ay aqoona mararka qaarkood marka sportsiga la hadlo oo runtii maalintaas ii xasuusiya saasaan maqalnay ana runtii waa ku farxa maadaama gobolka aan xilligaas magac fiican soo hoyay. waa hagaag dalbiyeerow sidee isku tihiin rigoor turista? runtii rigoorada aad baan ugu fiicnaa. dabeecad ahaan sidee isku aragtay adiga marka garoonka ku jirtay? cabdiqafaarow dadku inta badan waxay runtii dhahaan niyo banaanka markaad joogtid qof boqoraad tahay laakiin markaad garoonka ku jirtid runtii dabeecad ma lihid. runtii kubaddaana runtii inta badan u samaysan maadaama nin kubad yaqaan aad tahay inta badan dagaal baa waxaa kugu dhacaysa difaacyadu runtii way kugu dayeen inay runtii ku jabin iyo runtii ay si rafa kula ciyaaraan. runtii dabeecadeeda yaraanteeday soo bedelmeen maadaama nin dheeraha kubad ku fiican ahaa. kabacdi waxaa dhacday inaan dabeecadeeda runtii garoonka markaan imaado total anoona bedelin dabeecadihiin bay waxay isku bedeleen. runtii waxaan ahaa qof haddii la jibiyey cabdiqafaarow been kuu sheegmay gacanta ka horeysa oo aad dagaalami jirtay. aad iyo aad waa hagaag ma jiraa saaxiibka ilaa seere b ilaa seere a aad iska garab ciyaarteen aad xusi kartid? aad iyo aad cabdiqafaar aad baa mahadsan tahay. waxaan rabaa inaan wareysigan uga faa'iidaysto. waa nuur xasan cabdi nuur inji baa lagu yaqaanaa. runtii nuur kabtankii homboboro ii ahaa. runtii waxaan iskala soo bilownay ilaa runtii waxaan dhihi karaaba ilaa seere b ilaa seere a runtii ninkaa maana kala harin. marka waxaan cabdiqafaar ku dhihi karaa nuur inji. waa hagaag dalbiyeero adiga booskee ka dheli jirtay kubadda? cabdiqafaar waxaan ka ciyaari jiray dhexda ilaa afka hore labada baal 4 position ka ciyaartay. ma xusi kartaa guuldaradii kugu xumeyd ee kusoo gaarto intaad kubadda ku dhex jirtay? runtii guuldaradii ugu xumeyd waxay ahayd waa koobkii gobolada puntland. waa taariikhdan haddaan kaaga sheekeynaya cabdiqafaar. waxaa dhacday anagoo kasoo gudubna semifinalkii anagoo gurubyada kasoo baxna oo haddana semifinal aan kasoo baxnaba quarterfinal waxaan u nimid xog gobolka nugaal garowe. runtii garowe taariikh aanan runtii la ilaawi karin bay runtii nagu dhigtay ayadoo siyaabo badan ay runtii u dhacday. marka guuldaradaas markaan koobka ka hareynay baa igugu guuldaro xilliga soo maray sababtoo magaca gobol baan xambaarsanayn. runtii waxaan u rajeynaynaa gobolkeena magaciisa runtii aan meel fiican geyno anagoo weliba dee usoo dadaalno gobolka. haddana maalintaas runtii maalin runtii aada u foolxun bay ahayd. ma xusi kartaa albitri ugu fiicnaa ee gobolka soo maray? albitri ugu fiicnaa gobolka soo maro waa xusi karaa waa faarax warsame faarax shamuuri. waagaad wiilka ahayd ciyaartii ugu adkayd aad daabatay gobol ma xasuusataa? halkaa igugu celi cabdiqafaar. ciyaartii ugu adkayd ee aad gobol daabatay ma xasuustaa waagaad wiilkeed seera aada noqon? cabdiqafaar waagaan waxaan xasuustaa waxay ahayd galcom iyo dowladda hoosaan u malaynaya. game aada u xasuus badan buu ahaa. yaad jeclayd naadi ahaan inaad daawatid? naadi ahaan inaan daawado waxaan jeclaa isla homboboro markaan banaanka ka fadhiyo. sidee dareenkaagu noqday markii qaranka lagaaga yeeray? runtii dareenkaygu waa dareemi kartaa markuu yidhahdo xul dhan oo gobol baad matalaysaa. dareenku waa kacayaa runtii waanaad ku farxaysaa. runtii maalintaas waan xasuustaa gurigaan joogay. waxay soo wacay maxamed cabdinuur maxaa la lahaa maxamed cabdalle oo igu yiri runtii dalbeer waxaa kamid noqotay inaad xog gobolka mid kamid noqotid.
saas noola soco beri wiiga soo socon almita noo bilaabanaysa maalintaas runtii aad baan u farxay waxay ii ahayd waayahayga nooleed runtii aan horumarka ka gaaray kubadda markii kugu horeysay ee aad seeraha ciyaarta cabsi ma kugu jirta cabdiqafaar haa waan oran karaa sababtoo tahay waxaan seeraha markii ugu horeysaan ciyaar waxaan la ciyaaray runtii anoo da-dooda ay yarayd rag iga waaweyn oo weliba dee aan dhihi karo waa waxay ahaayeen rag runtii very professional waxaa ka mid ah xamdeeq wardheere waxaa ka mid ah maxamed sheekh waxaa ka mid ah maxamedoobe runtii raggaas markaad la ciyaaraysa waad dareemi kartaa waa rag aad anoo yar aan daawan jiray haddana waxaan la galay garoon la galay marka waxaan xasuustaa geemkii ugu horreeyey waxaa difaaca aan anoo weerar wajahayay kabaqolof runtii waxaa xasuustaa kabaqolof xanihii igu dhegay maadaama nin yaro orod badanna waan ahaa marka dhowr jeer baan geysaa ka maray markaas intuu refriga iska firiyey baa arkay ninkiiyo xanihii igu dhegay marka waaya waxaan kor maxaa siiya suu yidhi meesha ka dhaqaaq marka waad dareemi kartaa markaad ciyaarahaas kula ciyaaraysid saamaynta kugu yeelanaysa cabdiqafaar waa runtaa ma jiraa ciyaartoy aad u aragtay inuu ahaa jiilkaada kii ugu fiicnaa ee gobolka soo maray ciyaaryahan aan u arkay jiilkayga xilliga ugu fiicnaa runtii haa waa nin hadda dhintay kaysaa la dhahaa noo sheegin alla yarxamig waxaa runtii nin aad qaali oo ahaa runtii kubaddiisana runtii kubad qiimaysan oo runtii micno badan u samaynaysa runtii jiilal kale ahayd dalbiyeeru waqti xaadirkan adigu kubadda ma ciyaartaa waa ciyaara cabdiqafaar aad iyo aad shaxdaada riyada ma ii sheegi kartaa shaxdayda riyada runtii waxaan oran karaa difaac haddaan kasoo bilaabo waa geesa weyne difaacyo haddaan ku xujiyo waa aan ka dhex galo golhayaha waxaa ka wadaa geesa weyne golhayaha difaacyada raggaan dhagolayaashu naqaanay baan runtii labada baa la dhigi lahaa waa kabaqolof yare iyo burus labada difaac waxaan istaajin lahaa sayid cumar iyo cabdirashiid calaqod dhexda waxaan dhisan lahaa maxamed balde iyo sayhan waxaan yaarsiisan lahaa aadan daymare labada baal waxaan saaran lahaa axmed daybaraf iyo coon aniga iyo nuur iyo aniga iyo farisin af koranka ciyaarada waa hagaag dalbeero adiga kooxaha yul kooxdee taageertaa Juventus kooxdee ugu necebta Man United ma jiraa player aad ku dayin jirtay oo dadkii hore ahaa aad iyo aad runtii magacaas igu baxay baan runtii ku dayan jiray sababtoo ah mararka qaarkood baalka midigtaan ka ciyaari jiray weliba anoo dee habeenkaan daawado aan subaxii isku dayo waxaan aan ka daawaday runtii farsamooyinkiisa inaan soo xijiro oo magacaada runtii anayna saanta u watay imse koox ayaa koob la qaaday waxaan la qaaday homoboro koobka ugu badan homobora la qaaday waxaan rabaa inaan cabdiqafaar inaad su-aasha weydiinaysid iyo inaad kusoo socota in kala maaqaan laakiin waxaan rabaa gamekii ugu adkaa baan rabaa in halkan ka xuso waxaa jirtay game runtii loo dhigay nin runtii hal game buu ahaa gameka runtii waxaa loo dhigay nin runtii allah naxariista cabdullahi ciise waagii xorriyadda runtii loo dirariyey la rabay in isagoo talyaaniga joogo runtii irbad talyaaniga inay u qorsheeyeen irbad lagu dhufto cabdullahi ciise maadaama uu ahaa nin runtii very active ah oo runtii xorriyaddan runtii raggii kasoo shaqeeya ah irbad la rabay in isaga lagu dhibaateeyo runtii nin magaciisa hadda iga maqan yahay oo irbadaas ay cabdullahi ciise loo waday runtii intuu isku ekeysiye loo dhigay oo reer galkacyooda runtii oo ah dadka galkacyo runtii deegaanka galkacyo kasoo jeeda baa lagu keenay magaalada galkacyo marka runtii ninkaas aad baa runtii magaciisa iyo maamuuskiisa dadka ay u garanayeen dadka naga waaweyn runtii allah u naxariistay maxamed jaamaca iyo dadkaasa runtii xusayay ninkaa qiimuhu leeyahay waxaa dhacday ninkaasa waxaana loo keenay magaalada marka munaasabad
bale ninkan waa loo dhigayaa kubadda runtii waa ogtaa markii waxa la xusayay magaalada waxa lagu dhigaa munaasabado runtii sportskan oo hormuudka ahaa game waxaa jirtay loo dhigay homobaro iyo yamayska oo $200 oo markaa qiimo lahayd la yiri kooxdii runtii badisay $200 bay qaadaysaa waa knock out waa hal game cabdiqafaar haddaan intaa waxay xuso kabtankii xulka markaa kabtankii kooxda yamayska maxamed balle baa runtii iyo yamayska waxaa ka jirtay runtii xurguf dhanka dhexdooda ah waxaan ka soo qaadanay maalintaas oo maxamed balle oo yiri waxay mabaray way diidayeen waxa rabaa inay yamayska ka badino waan xusuustaa gamekaas game aad u qiimo badan buu ahaa game magaalada wada sugayso waxaa daawanayay ninka hadda cabdiqafaar kuu sheegayay iyo dhammaan muslimiinta gobolka mudug baa wada daawanayay maalintaas ciyaar aad adag baa runtii soo dhex martay waxaan xusuustaa 90 ciyaarta ay runtii gaadho gobolka sii dhacayo baan gool ka dhalin runtii goolkaas anaa ka dhaliyay goolka waxaa ii baasay maxamed balde baa ii baasay runtii cabdiqafaar gamekaas runtii wuxuu ahaa geemamkii summer gameka ugu adkaa buu ahaa guusha waxay saa ku raacdo mambaro halkaas koobkaan ku qaadnay halkaa $200 oo qiimo badan leh runtii baan qaadanay dalbiyarow adigu ahaantaada ma qof talent leh isku aragtay mise qof meel laxaada marka kubadda ciyaaraysa runtii qof meel laxaada isku arkay oo kubadda runtii isdhihi kara kubadda waad dadaali kartaa runtii dadaal baa annaga nala furay dadaalkeena wuxuu ahaa inaan guul gaarno cidii naga guulaysatan runtii aan hambalaya waa hagaag cawaale stadium inuu garoon caalami ah noqdo see u aragtaa cabdiqafaar runtii waa waxyaalaha runtii mararka qaarkood markaan aan maqlo runtii aan aad ugu farxo anigu ano halkaan jooga aan cawaale stadium runtii contributionka aniga cabdixakinaanteyda iyo dee intaan contribution aan runtii ka geysan karaan ka geysta marka runtii waxaan u arkaa inuu yahay wax runtii aad iyo aad runtii ii farxad gelisay sababtoo garoonkaas isagoo nooc walba le baan runtii kubad kusoo ciyaaray waa kusoo barbaaray yaraan baan runtii kusoo galay anoo runtii muqdaran oo kusoo ciyaaray inaan ku noqdo garoonkaasoo cabdiqafaar runtii caalami ah runtii farxadda ii tahay lama qiyaasi karo one dayna waxaan rajeynaynaa anigoo runtii cabdixakiin cukatare dalbiyaara ah aan garoonkan ku noqdo kubad ku ciyaaray intii qofki in alaala intii kasoo shaqaysay aan halkaan raba inaan aan ka xuso uu ka mid yahay xaji jamaxayr uu ka mid yahay ibrahim cabdullahi shiil uu ka mid yahay runtii inta hadda guddiga gacanta ku haysa runtii garoonka caasho gele horumid uu tahay runtii farxad bay ii tahay waana ku farxsan su-aasha u dambeysa ku weydiinayo sidee u aragtaa barnaamijkan aan ku wareysanayo sportskii hore cabdiqafaar runtii waan kugu ammaanayaa runtii waxaan ku leeyahay runtii ilaahay caqliga iyo runtii talada fiican ilaahay ku siiyey meel fiican ba ilaahay kaga siibay runtii waana kaaga mahad celinayaa waxaa tahay runtii qof bulshada runtii muhiim u ah sababtoo ah in bulshada ay dib u xasuusato aayuhoodii iyo waxay ahaayeen inay dib runtii dad badan waxaa jira runtii isgaran waa ku dhaco isgaran waaya inay dib ayaga laftooda loo xasuusiyo waxay ahaayeen bulshadana magacooda mar labaad uu gaaro oo wax runtii aad u fiican cabdiqafaar bilad baan kugu siinayaa kugu ammaanayaa adiga inta runtii kula ra'yiga ah waan ku mahadsantahay saaxiib adiga mudan saaxiib aad baan kuu salaamayaa waan ku mahadsantahay waqtigaaga muhiimka aad isiisay waxaan ku rajeynayaa mustaqbal ifaya saaxiib allah yacisiga allah ku sharfo asalaamu calaykum saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan janaalkayga fadlan subscribe ii saar aad baa mahadsantihiin